cabdiqaadir waxaa dhacday anigoo yar ayaa maxaan ku dhahdaa adeerkay ayaa aabahay wuxuu ku yiri aan gabadha kuu soo koriyo wax kuu soo baro marka reerkii reer baadiye iska ahaayeen haya marka wuxuu ku yiri gabadha aan kuu koriyo wax kuu soo baro wax kuu soo baratay u soo dir magaalada quraanka ha barato iskuulka ha barato halkan ha timaado marka halkan keen gabadha haya cabdiqaadir waa laysoo kaxeeyey markii laysoo kaxeeyey magaalada lay keenay magaalada markii lay keenay adigu waxbarashadii iska galay sidii ay wax walba de ahaayeen de horta hooyada iyo aabaha waxaad ka helisid cid aad ka helaysaa ma jirto yaraan haddaadan qadayno quraacan de naxariis baad ka helaysaa waa hal maroo ay laabta ku geliso hooyo ama aabe madaxa kuu salaaxo wax ka wanaagsan ma laha warun guys imisa qofaan hooyadoodii aabahood la soo korin wayna daawanayaan qosolka taabta intaan hooyo iyo aabe la soo korin dadkaas dhibaato badan bay soo maraan inta badan qof nasiib la mooyaane ku soco cabdiqaadir oo dhibaato badan baan soo maray horta waxbarashadii adeerkay wuu igeeyey oo maxaan ku dhahdaa waan ka midho dheliyey inkastoo anigu gabadh aad u adagoo fariida aan ahaa oo waxbarashada jecel oo wax kasta oo loo diray intay ka soo baxdo waqtigii waxbarashada aan marna dayicin waan gartaa cabdiqaadir waxaa markaa derisna la ah maamo deriska ahoo ay maaragtay hooyadii saaxiib ahaan jireen haya cabdiqaadir maamadaasi nus saacay siisaa way maaragtay i dareemaysaa waxaa dhacday inaan waxbarashadii sidii maxaa dareemayay bal ii kaali maxaa tiri kusoo celaataa sheekada kale dhigdhig lagugu dhufeeyey maamadaasi waxay dareemaysaa yacni inaanan hooyaday aanan la joogin markaan ag marayo way ii yeedhaa gabadh yar baan ahay cidi nusu saac ima siiso cidi waxba ima siiso sida carruurta kale u noolyihiin uma nooli laakiin waxbarashadeeda waan jecla waddada markaan marayo way ii yeedhaa nusu saaca yar lacagta yar bay ii laabtaa adeerkaa muxuu kuu soo kaxaysta dana xogsiinay waxba ima siiyo dee maamada guriga joogtay islaantiisaasuu igu halaynaya islaantiisuna waxaa lihiya waxay inay shaqo un ii dirsato shaqo un igu waasho oo igu dhabandhaabisa mooyaane xagga waxbarashada igalama sheekaysato carruurta fiidkii marka guriga la joogo waxaa la yidhahdaa wax akhrista qur-aankii la soo baxa kitaabkii la soo baxa buugtii la soo baxa wax akhrista midba midku ka wen yahay buu dhaha waryaa wuxuu akhri waryaa casharka uga xifdisii laakiin aniga buugaagta markaan sidaa u dhigo cabdiqaadir shaqada la ii diro waxaan ku leeyahay waan ku seexdaa sidaan u shaqaynayo haddana cid iga xariifsan guriga ciyaalka jooga gabadha uga xariifsan baana لأنه مركان اسكولك جوجو جلاسك جوجو عيال لما شاكيستو قبلها لما شاكيستو ساحب لما إيه توس 10 كمركا لا شرحيو ayaan maaragtay si fiican u dhageystaa gabar soo jeedaan ahay ugu tala gashay inay wax barato ka faa'iideysato inta ay wax baranayso loo ogolyahay waxbarashada oo waliba daba ka warwar qabtaan ahay oo isla ama shaqo ama de maaragtay waxbarashada laga saara daba ka warwar baa waliba qabaa cabdiqaadir oo maamadaasa maaragtay si fiican ila dhaqantaa maamadaasa waxay siisaa maamadaasa maaragtay wax aliya waxay jeceshahay ii yeedha maaragtay i warwaraysataa marka anigu waxba ugama sheego waxaan isdhahdaa ayaga magaalo isla jooga haddii doonto way ku sheegaysaa laakiin maamo fiican inay tahay waan u arkaa laakiin afkayga uma kala qaado sidaasaa wax yihiin iyo waxaasaa u baahanay ma idhaahdo wax waliba hadday dhacaan cabdiqaadir halkan markay marayso adigu xaaladii iska soo weynaaday haddaan soo weynaaday oo gabadh weyn oo xaaladda adag aan ku soo koray oo aan gabar roon soo noqday maamadii dariska ahayd sidii aan waxbarasho u bilaabay ilaa aan maanta aan weynahay lacagtii isiin jirtay kolba kolka ka dambaysa marba marka ka dambaysa way ii sii biirin jirtay oo igama aydin dayn
هيا adigu halkaa markay marsan iska soo yar weynaaday gabadh weyn oo wax kala garanaysa noqday waxbarashadayda aan xoogga saaray oo markasta aan saada reerkiinu maadaama reer baadiye yihiin isha keliya u bidhaantay waa adiga هيا halkaa markay marayso maalintii dambe xaafadii waa isqabanay waa isku maaragtay wax kasta waxbarashadii way damcaaday odayga adeerkii way igu dirtay wax kastay samaysay cabdiqaadirow heer baa la gaadhay maamadaas maaragtay aayaday ay gurigiiga erido si aan waxbarashada uga tago هيا heer bay gaadhay ay si aan waxbarashada uga tago ay xumayso ya habar qabiil muxuu ku soo kacaysanay haddaan wax ku barayn haya gurigii inay iga erido inay tiraahdo way habsaantaa inay intay wax ii dirso tiraahdo lixdii maantaan diray maantoo dhan bay maqleen been iga samaysato in la yidhaahdo waa lagu celinayaa adigu adeerka intuu gacantay qabtay buu baadiyihii igu celiyey haya baadiyihii hadduu igu celiyey oo la yidhi aan ku yidhi aabba wax baan bartay baadiye imika lama qabsan karo waxbarashadeydii inaan maaragtay sii wataan rabaa islaanta aayaday baa maaragtay igu xumaatay ciyaalkeedii baan waxaan noqday dee qof aad uga maaragtay uga fiican oo uga xariifsan oo hadday dhinac kasta noqoto aan ka xariifsanaaday waxbarashadii baan kaga fiicnaaday ayagoo weliba magaalada iyagoo ku dhashay aabbo maanta waxbarashadeedii aan wato welibana maanta gabadh weyn baan ahay anaa waxbarashadeedii wadanee waan shaqaysanayaa adigana beri markaan waxbarashadaa dhammaysto waxbaan ku tarayaa naftaydana waxbaan tarayaa nafihiinana waxbaan tarayaa laakiin aabbo ha ii raacin islaanta adeerkay khaladka ma laha waxba ma oga wixii loo sheegu qaatay laakiin islaantaasaa ka dambaysa intaa ii hadhay anaa isdaberaya aabbow dhinacna waan ka shaqaysanaya dhinacan waxbarashadan ka baranaya ka wadanaya marka aabow ii ogolow jaaniskaa keliya isii waktina isii aabahay cabdiqaadiro waayahay buu yidhi halkan aan kasoo orday magaaladii aan ku soqnay islaantii ii roonayd ee jaarkoodii baan u imaaday islaantii markaan u imaaday ayaan ku uri xaggaad ku maqnayd waxaan ku uri islaantaas aayaday mad aragtay ayaa baadiyihii ka dambaysan laygu celiyo laakiin aabbahay waxaan ku uri waxbarashadaan soo dhammaysto waan bariyey uuna ii ogolaaday hooyada iyo islaantii way garanaysaa hooyada islaantii sidii bay iskula xidhiidheen waxay tiri gabadhiina anaad igu ogtihiin waa gabadh yaroo fiican waxbarashada ku fiican inta halkan bay joogaysaa waxbarashadeeda iyo wax kasta oo maaragtay heer kasta ay waxbarashadeedu gaadhana aniga madaxay ku qaadanaya cabdiqaadir oo halkaa markay marayso hadday adkaanaysaa haddaba acuuduka billah adkaatay samuuradda adkaatay ka dhiga sheekada ila guro adkaatay ka dhiga anigu inta adkaanaysa man sugaa iyo ila mid horta inta adkaanaysa sheekada sugaa ku soco tamaanta thank you ina mari cabdiqaadir oo waxaa dhacday sheekadu markay halkaa maraysay oo maamadii waxay tiri habar yar waxaan jeclaystay wiil aan dhalay inaan ku baro oo gabadh fiican baa tahay waxbarashadaadaad wadato ilaa heer jaamacadeed inaad idhaaftana ma rabo inaad gabadh maaragtay faamiliga ka mid noqoto ayaan rabaa waxaan doonayaa dhinacna inaad idhaafto ma rabo waxbarashadaadana ilaa heer jaamac ilaa heerka adigu aad u baahan tahay qalbi ku haminaysid waa ballan baa kaaga qaaday inaad sii wadanayso maxay markaas tiri ma ad eegay inan baan ku barayaa bay tiri inankaygaan ku barayaa ma islaantii haa adkaatay hablo ma ogolaan laydin inay islaanta wanaagsan dhaqanka wanaagsan inankeeda ku barto laakiin kaasi muxuu soo gabadho baran waaye markaasi ma dibaddu joogaa mise waddanku joogaa maya cabdiqaadirow dibaddu joogaa waxaa dhacday markaa inuu igu yidhi waayahay baan ku uri anigu inaan waxbarashadayda haddaad ii ogashahay ilaayo heerka anigu aan ka rabo waa baran karaa haye habluhu markay dibadda maqleen haa kulaha way ogolaadeen ku soco